ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa galay maalinkii koowaad waxaana maanta si gaar ah u lahaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid. laascaanood waxaa soo gaaray murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid boqolaal iyo kumanaan taageerayaal ah oo ku suntanaa astaanta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa hoganaya maanta meel ka baxsan laascaanood si ay u soo dhaweeyaan murashaxa farta lagu fiiqay Professor Axmed Muuse Abyan. intaasi gadaasheed waxaa loo soo gudbiyay laascaanood oo uu dhex maray murashaxu maanta goob fagaara ah oo uu kala hadlay dadweynaha ayaa uu Abyan ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ee reer laascaanood sameeyeen. aad baan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta diiran iyo qalbi wanaagga aad ii muujiseen anigoo ah musharaxiinii madaxweyne ku-xigeen magaalada ay tahay magaaladan u dhashay ay tahay maanta oo dhan bacad baa taagnaydeen deegaamo badan baanu soo marnay waqti kulul baanu nimid taa waa idinka raalli gelinayaa dulqaadka aad muujiseen walaalayaal maanta waa maalin taariikhiya weeye maanta waxa weeyaan maanta go'aankaad gaadhaan maanta ayaa mustaqbalkiinna iyo masiirkiinna qaabaynaya waxaad og tihiin sida uu sheegay guddoomiyuhu in shalay la soo gabagabeeyey wadahadalladii Somaliland iyo khaatimo u dhaxeeyey waxaan ku qanacsanahay haddana ku qanacsanahay oo kaga duwanay siyaasiyiinta kale ee aad diri jirteen in gobollada Sool Sanaag iyo Cayn aanay ku lahayn awood qaybsi rasmiya Somaliland inaanay jirin hore u jirin wax wada lahaansho arrintaas oo hadda ay xaqiiqsadeen siyaasiyiinta Somaliland madaxweyne ilaa iyo hogaamiyaasha axsaabtu in Somaliland aan midaysnayn oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn xaqeeda aanay helin iyo waxay mudan tahay inaanay Somaliland sii jirayn waa mid ay ku qanacsan yihiin waa mid anigu hadda aan shaqadan ugu tartamayo. geesta kalena Abyan oo wata hadalkiisa ayaa sharaxay inuu wax ka dhisay maamulkii Khaatumo fahmayeen danaha gaarka ee reer Khaatumo u baahan yihiin. arrintaas hadda way isbedeshay dastuurkii waa la furayaa xaqa goboladana ay leeyihiin bay helayaan insha Allah taala waxaana xaqa ka shaqeynaya qof aaminsan oo ka soo shaqeeyay qadaayaadkooda oo waa aniga SSC baan wax ka dhisay Khaatumo wax ka dhisay maanta xaqa aad Somaliland ku leedihiin waxaad mudantiin baan la raadinaya. murashaxa madaxweyne ku-xigeen oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in lacagta kulmiye qaybinaya la cuno laakiin codka lagu dhisay isaga waxaan ku soo gabagabeynayaa wax badan baa meelaha la yaacaya xisbiyada kala kulmiye wadana waxa aniga soo kaymid weeyaan waa kulmiye oo soo kala jabay oo heshiin waayay waxay cunayeen ku heshiin waayay weeyaan waad ogtihiin sanadka hor soo kala jabay waxay soo korinayaan ma jirto waxa weeye lacagtan ay qaybinayaan waa lacagtan ay sayrsaylayaan waa lacagtii loogu talagalay horumarka caafimaadkiina biyihiina waxbarashadiina waa 2%-gii ma isweydiiseen 2%-gii madaxweynaha Somaliland Siilaanyo uu qoondeeyay gobollada bari ama gobollada Sool Sanaag iyo Cayn dhowr sano ka hor xagay martay ma soo gaadhay lacagta account looga furtay Hargeysa axsaabta hadda idin hor ordaya lacagta sayrsayrinaya calaamada faraha badan iyo guryaha badan rinjeynaya waa lacagtiini weeyaan lacagta ay qaybinayaan qaata waa lacagtiini xaq baad u leediin waxana sayrsayrinayaan ka qaata waa lacagtiini weeyaan laakiin codku waa Xamsaraade iyo RTN laascaanood.